dabayl khafiif ah buu alla soo dirayaa dabaysha khafiifka waxay ka imaanaysaa dhanka Shaam Suuriya iyo Urdun iyo Filistiin iyo dhulka xaggaas ka imaan doontaa dabayshaasi markay timaado nabi Ciise iyo muuminiintii la socday bay si fudud nafta uga qaadi doontaa marka ugu dambeeyo oo adduunka la gabagabeeyana waxa soo bixi doonta oo ka soo bixi doonta Yemen dab baa ka kici doona dabkaasi dadka ayuu soo kaxayn doonaa naarun tahshuru naas dadka ayay dabada ka soo gali doontaa habeenkii meeshay baryaan gadaashooday baryaysaa waagu markuu u baryana way raranahayaan oo way soo kaxaynaysaa oo xagee u wadaa dadka markuu soo degay nabi Ciise alayhi salaam dhulka wuxuu joogi doonaa muddo 7 sano isaguna dhulka joogi doonaa markii uu yimaado 7 sano dhulka joogi doonaa muddada uu dhulka joogo muslimiinta hogaaminayo muslimiintu aad bay u midaysan yihiin waa dad isjecel dhibkii masiix ad-dajaal gaalka ahaa dhibku muddadii uu noolaa u geystay ayay ka soo kabanayaan dad isjecel oo walaalo ah oo isu qalbi fayow oo isku duuban oo isku qadiyad ah oo isku hoggaan ah maalinkaasi muuminiinta nabi Ciise u wado kuwa iyaga way markii muddo uu dhulka joogo muddadii alla ugu talagalay wixii ilaahay ku kufriyayna uu la dagaalamo nabi Ciise alayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam oo meesha ka saaro muuminiintii iyo dadkii ahlu diinka iyo muwaxidiintana uu xoojiyo ayaa markaa waxa iimaanaya dabayl aad u khafiif ah dabayl khafiif ah buu alla soo dirayaa dabaysha khafiifka waxay ka imaanaysaa dhanka Shaam Suuriya iyo Urdun iyo Filistiin iyo dhulka xaggaas ka imaan doontaa dabayshaasi markay timaado nabi Ciise iyo muuminiintii la socday bay si fudud nafta uga qaadi doontaa markii nabi Ciise iyo intii la socotay nafta laga qaado dabaysha fududi ay nafta ka qaado dhulka waxa isugu soo hari doona dad aan ilaahay rumaysnayn oo sida dameeraho kale to isu fuulahay dhulka korkiisana marka laga heli maayo cid Allah tiraada laga heli maayo la ilaha illa Allah wax leh hatta dhulka korkiisa laga heli maayo dadka ay qiyaamadu ku dul dhici doontana waa kuwaas muuminiinta ayagoo nool qiyaamadu ku dul dhici mayso gabagabaynta adduunka la gabagabaynayo ee buuraha iyo dhulka iyo waxan la isku garaacayo ayaga ku imaan mayso intaynan imaanin wax yar ka hor baa muuminiinta inta ugu dambaysa ka tagayaan adduunka oo nabi Ciise salawaatu rabbi wasalaam alayhi uu hogaaminayo inta wixii ka soo haray dhulka gaala ku nool gaaladaasi ku nool dhulka korkiisa ayay qiyaamadu ku dul dhacaysaa taasuu nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaam alayhi taana waa calaamad kale oo nabiyullaahi Ciise imaanshihiisa ayaduna waa mas'alo qaati'a mutawaatira ahlu sunna wal jamaa iskuma khilaafsana laakiin niman la yiraahdo khawaarij iyo niman la yiraahdo mu'tazilo iyo firqooyin lunsan iyo dad aqlaaniyiin ah oo maskaxdooda wixii ay ka helaan diin ka dhigta kuwaasa inkiray nabi Ciise soo degidiisa ma jirtay waa khuraafaad bay leeyahay nabi Ciise muddo inta la eegseebu u noolaan karaa hadduu tagay seebu ku soo noqon karaa aqliga diidaya aqligaaga hadduu diidayo mid kala ogol ma kaaga saxsan mise midka ogol baa ayaa saxsan aqli sidiisaba ma aha marjic wax laga qaato ma aha aqlaaniyada bal waxa jirtaba Soomaali diidan baa jirta bal waxa jira wadaado waxa jira ka doodsan imaanshaha nabi Ciise soo degidiis ayadoo quraankuna tilmaamay xadiiska nabiga mutawaatir kana ay tilmaameen marka wax la inkiri kara ma aha waa xaqaa'iq rabbi ka warramay tabaaraka wa taala imaanshahoodana la sugayo way calaamada afraad oo kamida calaamaadka waaweyn soo socda waxa weeye dhuhuru yaajuuj wa maajuuj yaajuuj iyo maajuuj baa iyaguna soo bixi doona dhulkii way wada marhayaan kadibna Allah tabaaraka wa taala markay dhulka wada maraan oo meel taaga iyo meel god ah iyo bad iyo kulli wada maraan ayaa markaasi waxa dhacaysa waxay dhahayaan wax alla wixii dhulka korkiisa joogay waynu ka adkaanay dhulkii inaga haysana waa inaan hadda cirka ku duulawaay dhulkii wax iska keen celiyo ma jiro waanan qabsanay wax dhaqaaqi kara male sidaas daraadeed kor baa laynaga jiraaye
duulaankeenna hadda waa inaan kor ku jeedinno samada iyo wixii joogay wixii ilaah sheeganaya meesha aan ka soo takhalusno haye duulaan baa la qaadahaya fallaadhihii iyo hubkay wateen iyo wixii bay kor u ganahayaan waxay leeyihiin malaa'ig wixii kor jiray baan la dagaalamayna ilaahay waa imtixaanahayaaye hubkii ay tuureen iyo fallaadhihii iyo warmihii iyo waxay tuureen ayagoo dhiig lebay dib ugu soo noqonayaan markaasee waxay leeyihiin wakaasoo wixii kor jirayna ka takhallusnay khalaas kor iyo hoos ba inaga haysana waa ismaadiyeen markaa allah tabaaraka wa tacaala marka meel fogba loo raadin maaye ayagoo kibirsan oo dhulka haysta oo isla weyn oo cid iyo dhulba anaga haysana meesha la taagan ayaa rabbi wuxuu ku soo saarayaa dixiri waaweyno la eg bahalka la yidhaahdo sangaalaha waxa laga yaabaa garanay sangaalaha waa bahal geela sanka ka gala oo ama xoolaha sanka kale oo birif markuu yidhaahdo ka soo dhaco bahal intaa la egoo dixiri oo kuuskuusan ayuu ilaahay ku sallidaya marka wuxuu ka gelayaa dhuunta halkaa luquntuu ka gelayaa markuu luqunta ka galo kulligood way wada daadanayaan nimankii dhulka soo qabsaday samadana inay soo qabsadeen oo ka soo reeyaan haystay dixiri baa eber ka dhigahay war dixiriga iska celiya ma iska celin karaan bini aadanka dacfigiisa iyo tabardarradiisa dixirigaasaa daadinahay markay baaba'aanoo dhulka kulli eber baxaan bakhtigoodii iyo urkoodii iyo qashinkoodii baa dhulka korkiisa buuxinaya markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu samada ka keenayaa roob muddo si isdaba jooga u di'i doona roobkaa waxaa ka dhalan doona daadad dhulka dhan camimi doona daadkaasi wuxuu qaadi doonaa qashinkoodii iyo bakhtigoodiioo buu qaadi doonaa markaasuu wuxuu ku dari doonaa badaha dhulkii baa nadiif noqonaya nebi ciise iyo mu'miniintii oo buuraha korkooda saaran oo meeshaasi yacni waxa way ku jira ayaa marka waxaa la dhahayaa soo dega adduunkii bay dib ugu soo noqonayaan dhulkii bay ku soo noqonayaan asagoo dhulkii la nadiifiyey oo wax saxara uusan saarnayn ayay marka dib u soo degayaan yaajuuji wamaajuujna taariikhdoodu halkaasay ku dhammaan doontaa ayaguna wax badan bay baabi'in doonaan ayagana marka ugu dambaysa dixirigaasaa ka takhallusi doona saan horey usoo sheegnay nebi ciise iyo mu'miniinta la socdana ayagana aakhirka marka ugu dambaysa waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala usoo diri doonaa dabaysha khafiifka ah oo nafta ka qaadi doonta ayagaana ugu dambeeya dad mu'miniin oo dhulka korkiisa jooga oo yacni waxa way ugu yacni baaqi ku ah ayagaasaa ugu dambayn doona insha allahu tacaala kadibna qiyaamadii ayaa dhicitaankeedii soo dhowaanaya waxaa ugu dambeeya waa gabagabaynayna insha allahu tacala calaamaadka waaweyn ee soo socda waxaa ka mida maalan dhulgooyo saddex ah oo waaweyn oo adduunka ka dhici doona ثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني dhulgooyo dhulka oo la isla jarayo magaalooyin dhan iyo deegaamo dhan baa siday u joogaan ayay dhulka ka hoos marayaan mid bari buu ka dhici doonaa midna wuxuu ka dhici doonaa galbeedka midna wuxuu ka dhici doonaa jasiiradda carabta saddexdaa dhulgooyo oo aan la mid ahayn dhulgariiryada hadda jira ayaguna imaanshahoodu waa calaamaadka waaweyn ee qiyaamada ku tusay dhulgooyooyinkaas iyaguna fii saxiix muslim baa xadiidkiisu ku sugan yahay qeyrkii wuuna imaan doonaa waxaa ka mid oo calaamaadkaa ka mida addukhaan qiiq isaguna dhulka qabsan doona waana midda rabbi tabaaraka wa tacaala ku sheegay fii suurati addukhaan fartaqib yowma ta'ti as-samaa'u bidukhaanin mubiin yaghsha annaasa hada cadaabun aliim dhulka iyo samadaba waxaa camimi doona qiiqaasi dadka mu'miniinta iyo dadka ahlul iimaanka sidii hargab oo kaluu u qabanaya hargab oo kaluu ku noqonaya laakiin dadka aan diinta lahayn ee ahlu tawxiidka ahayn buu yaa ku rafaadi doona calaamaadka waaweyn buu nabigu ku daray sallallahu alayhi wasallam xadiidka cabdullahi ibn cabbaas iyo keyrkii cabdullahi ibn mascuud isagu wuxuu qabay qiiqani calaamadaha aayadda ka mid mehe wuu tegay oo wakhtigii nebiga ay qurayshi beenisoy diiday xilligaasaa abaaro lagu imtixaanay
samadii iyo dhulka dhexdooda qiiq baa isqabsaday qiiqani marka kaasaa laga wadaa fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubiin Abdullah ibn Mas'ud baa qabay laakiin Abdullah ibn Abbas iyo qeyrkii siday qabaan ma ahee qiyaamadu markay soo dhowdahay qiiq samada iyo dhulkaba qabsan doona oo dabooli doona oo isaguna soo socdo waxa ugu dambeeyo kaga baxaya calaamaadka qiyaamada ee waaweyn waxa kamid aan dhihi lahaa laba inoogu dambeeya تكوبادي waxa weeyaan طلوع الشمس من مغربها qorraxda oo ka soo baxda dhankay u dhacdo yaani waxa nidaamkii adduunku ku socday baa kharimaya marka nidaamkii baa kharimaya dayixi qorraxdii systemkii iyo nidaamkii nolosha looga bartay qorrax bari ka timaado oo galbeed u dhacda oo waqti maqnaata waqtina soo baxda systemkaas adduunku ku kala socday wixii oo dhan baa la dabarogaya marka qorraxdu waxay ka imaan doontaa meeshay hadda u dhacayso sida gabalku inoogu dhacay oo u sugayna inay qorraxdii xagga ka timaado ay ka imaan jirtay adduunkii waxa lagu waabariisanayaa qorraxdii oo dhankii ay u dhacday oo ka soo baxday ajaayib calaamada ugu weyn iyo calaamaadka ugu waaweyn ee soo socda iyada waxayna culimada tafsiirku ku fasiraan aayada quraanka yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan iimanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi iimaniha khayra ayadaas markay timaado ruuxii horay aan iimaan u lahayn waan rumaynaya aan laga aqbalin horay khayr cidaan u sameeynin oo iimaan ku sameeynin haddaan rumaynay khayr baan la iimaanaya aan laga aqbalaynin ayada iyo calaamadaasi waa qorraxda soo bixitaankeeda sidaas ay mufassiriintu ku fasirayaan nabigana sallallahu alayhi wasallam hadith sahiha ka sugan min hadith abi hurayra qeyrkii bukhari muslim soo saaray saacadu ma qumayso ma iimaanayso ila qorraxdu ay ka soo baxdo dhankay u dhacdo markay soo baxdo oo dadkii arkaan qorraxdii oo xagga ka soo baxday aamanu ajma'uun dhammaantood way wada rumaynayaan la ilaha illa allah muhammad rasulullah kulli wal israa'aya diinti muxuu ahaay in diinta la wada galaa la isku dahaya oo la rumeeyo markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam fadaaka hina la yanfa'u nafsan iimanuha xilligaasi waa xilli ayna naf anfa'aynin haddaan rumaynaya naftii horay mu'minad u ahayd sax iimaankeedii waxay ku sameysay waa soconaya laakiin gaal baan ahaay haddaan rumaynaya qorraxdii baa xagga ka soo baxday wixii la sheegay baa runa mu'min baana kactag baa laga yeeli maayo warkaas socon maayo xadiiskaasina waa xadiis nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu calayh markay qorraxdu ka soo baxdo dhankay u dhacdo xilliga isaga ah toobadu waa xidhanta toobadi waa xidhanta markaas ruux walba meeshay markaa u joogto bay xaaladiisu ku xarkagaysaa kuna ingegaysaa isbedel ma jiro kii gaal ahaayo gaal baa tahay kii mu'min ahaayo mu'min baa tahay kii faajir ahaayo tawba ma jirto kii saalix ahaayo saalix baa tahay xaaladu waa xidhan tahay marka isbedel ma leh tawbada irideedii qorraxda soo baxdayba waa xidhantay sida nabiga xadiiskiisa ku sugan salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxa kamida oo ugu dambeeya insha Allah ta'ala calaamaadka waaweyn aan muxuu ahaayay soo diyaarinay daabada daabada oo iyadana quraanku tilmaamay وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني مركو هذا الكرب يحوون كيس كركو ذا كدعو وحنوصو صارنا كركو ذا دابة بنكوصو صارنا دابة دا سيقول كي كسو بحيسا ضد كين الله الله يسا وحين لا ذهي ضد كي إلهي آيات كي سوا بينيين حديث النبي وحي قدرتي دابة مركي صوب حدو ضد كي علامين يسا دابدو maxay tahay waxay tahay Allahu a'lam ma faras ba ma baqal ba ma neef geela ma xayawaan kala say u eg tahay Allahu a'lam daabad halka loo dhaafi maayo wixii inta ka badan wax ku dardarayo suuradeeda wax ka sheegay waa riwaayaad israa'iili oo aan sugnayn waa inta aan anaga hayno wax weeyaan waa inta wax ka siyaasan oo la haya ma jiro daabadaasi markay soo baxdo waa xilli amalkii dhamaaday oo isbedel uu san jirin taqriiban waxay culimada qaar kood tilmaamayaan waa xilliga qorraxdu ka soo baxdo dhankay u dhacdo ilaa marka isbedel ma jiro moogta dadkii marka way isku dhex jiraan waa in la kala calaameeyo markaas ay iimaanaysa ruuxii muuminka hana waxay ku qoraysaa mu'min
kii gaalka ahaana wajiga waxay kaga astaamaynaysaa gaal kii munaafiq ahaana munaafiq wala jooga hadagoo adduunka korkiisa la jooga wali wala sheekaysanay maqaayadaha la isugu imaanayaa ilaa hadda waynu asturanahay hadda xaalkeen waa asturaya mise hebelkii fulaan ahaa la yaqaan waaba kan waaba munaafiq waa ku qoranta wali hebel gaal inoo dhuumanahayu aha waa ka isagana waa ku qoranta meelii baa la isugu imaano dadkii waatan noloshii wali waa dhisanta marka ayaduna way imaan doontaa astaamahaasay dadka kala siin doontaa daabatul ardi oo calaamaadkaasay bixin doontaa xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam baa iyaduna ku sugan tahay muxuu ahaayay marka ugu dambeeyo oo adduunka la gabagabeeyana waxa soo bixi doonta oo ka soo bixi doonta Yemen dab baa ka kici doona dabkaasi dadka ayuu soo kaxayn doonaa naarun tahshuru naas dadka ayay dabada ka soo gali doontaa habeenkii meeshay baryaan gadaashooday baryaysaa waagu markuu u baryana way raranahayaan oo way soo kaxaynaysaa oo xagee u wadaa dadka dabka iyo naartaasi dadka waxay u sii wadaa ardul mahshar meeshii dadka lagu soo saari lahaa waa xagee waa ardu sham Soomaalida maqal in dadka la isu keeni doono maalinta qiyaamada xagee la isu keeni doonaa waxa la isu keeni doonaa sham baa la isu keeni doonaa ardul mahshar halka waa meesha dadku inay tagaan oo isugu tagaan yaa ka shaqayn doona dabkaasa ka shaqayn doona dadkay soo kaxayn dina dadkii dabka waa ka baqayaan waa ka cararayaan way soo daba socon iyagina waa ka sii qaxayaan xagga aadi maayaan xaggana aadi maayaan way ka soo celin way soo celin say u soo wado meeshkii loogu tala galay bay soo istaajin doontaa naarta soo bixitaankeedu iyadana calaamaadka waaweyn ee qiyaamada ayay culimadu ku daraan warka gabagabadiisu waxa weeye calaamaadkii yaryara intoodii badnaa waa soo bixeen calaamaadkii waaweynaana inay bilowdaan oo ka ugu horeeyo soo baxoon bay ku xidhan tahay ka ugu horeeyo markuu soo baxana inta kale waxay u soo bixi doonaan si xidhiidh ah oo isdaba yaal ah oo haba yaraatee aan waqti u dhaxaynin bay u dhici doonaan